بسم الله ده sida loo wada socotaan hay'adan horta waxa la aasaasay 1993 maraaxil kala duwan way soo martay marxaladaha ay soo kala duday mar walba xilligeedii iyo waaqaceedii iyo duruufaheedii baa ku xeernaa alxamdulillah imaka xilligan dambe marba marka dambaysa way soo koraysaa tayadeeda iyo aqoonteeda iyo way aragnimadeeda waxa kale oo soo kordhaya dadka aqoonta leh ee aqoonta u leh maamulka dawladda iyo adeegida bulshada waxa rool weyn oo muhiim ka qaatay waxa weeyaan maxadka tababarka shaqaalaha soo saaray dad khibrad u leh sida dadka loogu adeego oo u mahad celinayo dadka maamulaya runtii waxa markaas hay'adda shaqaaluhu imaka ugu mashquul badan tahay waa laba qodob oo waaweyn baa jira waxa weeyaan in la xulo shaqaale karti leh aqoon leh isla markaasna aaminaad leh in la xulo sidii loo soo xuli lahaa waxa kale oo ay hay'addu ku mashquulsan tahay oo ugu hawl badan waxa weeyaan dadka la xulay iyo dadka hore u sii jooga shaqaalaha oo runtii aan aaminsanahay inay yihiin mujaahidiin ay yihiin waayo duruufo adag bay ku shaqaynayaan haddana in la ogaado sida u shaqaynayaan dadkii ay wakiilka aan ugu ahayn inaanu ugu ilaalino sida ugu shaqaynayaan inaanu iyagana ka daba tagno oo xafiisyadooda ku booqano oo anagoo oo nala og yahay iyo anagoo nala ogeynba aanu hay'adihii dawladda iyo wasaaradihiiba soo booqano oo kursi iska dhigano oo dareenka dadku ay ka celinayaan adeega looga fidiyay meelaha ay booqanayaan aanu doodna goor warbixino ka soo diyaarino wax qabadkeedina markaa iyo xeerarkii lagu dhaqayna insha Allah way noo diyaar dhawaana insha Allah xeerar cusub iyo nidaamyo cusub oo aanu doonayno in la isla jaan qaado way dunidu way isbedelaysaa maalinta ka dambaysa inaanu isbedelka dunida ay shaqaalaheennuna la kor qaadaan isla markaasna xitaa aanu dadweynaha loo shaqaynayo aanu qaabkii wacyigelin loo siin lahaa qofku markuu xafiis dawladeed yimaado inuu garan karo inaanu kulba xafiis soo taagin xafiis waliba wuxuu qabanayo uu garanayo oo xafiiskaas markuu shaqada dhameeyo xafiiskii kala tagayo oo qaabkii noocaas ah insha Allah inaynu sameynano imaka waxyaabaan ku mashquulsanay بسم الله horta waniga ku sheego marba marxalad beddelku soo maray waxyaabaha aan isleeni waa laga soo gudbay imaka kamid tahay intan imaka xukuumaddan ay jirtay iyo qaybahan dambe ee commissionka wax isbedel lagu sameeyayba hawshaasi way socotaa siyaasaddan aan ku shaqaynayno ee xisbigan talada dalka haya uu dajiyay ee uu hormuudka ka yeena madaxweynuhu ee aan ku shaqaynayna waxa weeyaan cabashada dadku way gaadhaa madaxweynaha hay'adan way timaadaa iyo commissionka طبعا كتلقلك waxa weeyaan iyo qorshaha iyaga naga go'an in ka wax laga bedelo waxa weeyaan qofku markuu dhamaysto waxbarashadiisa inaanu ka warwarin inuu Suudaan raadiyo inuu xildhibaan raadiyo waa fariin aanu marinayo dhalinyarada u sheegayo wax garadkeenana uu marinayo waan ognay wax garadkeena caqabadaha haysta in dhalinyarada u imanaysa hablayeena mabale waxbarasho dhamaysi shaqo doonaysa waxaan leenahay taas waanu joojinay imaka laga bilaabo imaka 7 bilood ma dhacdo may dhicin in shaqaalaha dawladda oo dhan marka la keeno xafiiskada la yiraahdo kala bedel halkan aan ku ururinaa waad ogtiin imaka toddobaadkii hore laas caanood baan joognay commissionka iyaga iyo shaqaalaha iyagoo dhan laas caanood baan u guurnay laba faa'iido arrintaas lahayd mar waxay hayd ma yahay shaqaalihii qaranka ee sanadkan cusub 2017 in shaqaalihii in la qaato loogu talagalay ma yahay waxay hayd dad shaqada iskood uga tagay sidii gudoomiyuhu dhowr jeer hore uu sheegay dad shaqada iskood uga tagay ka tahriibay shaqo kale helay dhintay oo soo ururinay oo kormeeradayadii iyo jeeknadaydii ka soo baxay 30 xubnood baan isla keenay annagoo fuliyayna markaa siyaasadda xukuumadda aanu ka tirsanahay commission hadaanu nahay waxaanu go'aansanay inaanu baahino oo dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogto siino waxa kale oo fursada uga faa'iideysanay inaan mar walba khayraadka la helayo inaan xaruntii dalka aan lagu qaybinnuune ay ka faa'iideystaan gobolada fogfog oo dhalinyaro fara badan oo laga yaabo inaanay haysanin duruufo ambaba fikrad macaan ka haysanin Hargeysa ambaba aanu awood u saamaxayn inay kula tartanto dad fara badan Hargeysa inay kula tartamaan inaanu laas caanood keenno
maasha Allah guul buu ku soo dhamaaday 200 qof baa soo xareystay shortlist wax yar baanu reebnay markaanu kala shaandhaynay imtixaan baa u fariisteen 30 qof laba hablood iyo 28 inan ayaa soo baxay waanu qaybinay wasaaradii baanu qaybinay wasaaradda waanu u geynay qof walba iyada nagala wareegtay waanu soo kaxaynay waxaan xitaa xaq wasaaradahan lagu lahayn ayaanu si aan dhalinyarada u dhiirigelino intii wasaaradahan u qaybinay annaga hudheela dejinay annaga kharashkooda qabnay markii aan wasaaradii ku wareejinayna wasaaradda waxaanu ka doonaynaa wasaaraddu qofka halkay doonto u diran kartaa qof bay hadduu doonto laascaanood ku celin kartaa qof bay booramo u diri kartaa qaar bay xarunta u geyn kartaa laakiin annaga waxaanu wasaaradda markaa ka doonaynaa inay dadkii shaqadii geliso isla markaasna annagu aanu ku daba socnoon annagu dadkii aanu imtixaan ka soo qaadnay halkay maraya marka go-aanka hay'adda shaqaaluhu waxa weeye in la fuliyo qof kastaaba qalinkiisa halku dhaga hay'adda shaqaaluhu waa ka ku qoran boorkeeda waa qalin aan qabiil lahayn cadaalad aan ciil lahayn ayaa ballankeenu yahay waxa weeyaan qofka shaqaalaha markaan halka ku dhajino website-da ku soo qorno joornaalada ku soo qorno waxaan naga go'an in imtixaan cadaalad waliba reer Hargeysa waxaan leeyahay haddaan gobolada fogfog imtixaanada ku soo qaadno hala yaabin waayo waxaanu doonaynaa dadka inaan wada tixgelino qofka reer Hargeysa tagay cid uma diidayso waa dalkiisa haddaanu sanaag tagno haddaanu haw tagno haddaanu awdal tagno haddaanu salaxle tagno wax farqi u dhaxeeya ma jiro dalku waa dalkiisa laakiin inaanu dadkeenii fogfogaa meelaha fog jooga tusno in caasimaddu u shaqeynayso iyaga iyo reer Hargeysa isku shaqeynayso ayuun bay naga tahay socdaa mashruucaasi wuxuu khuseeyaa imaka 10 hay'adood wuxuu khuseeyaa hay'adda shaqaalaha dawladda iyo maxadka oo isku dhinaca waxa kale oo khuseeyaa 8 wasaaradood oo aan ka xusi karo madaxtooyada macdanta iyo biyaha qorsheynta qaranka horumarinta reemiga caafimaadka waxbarashada waxyaabaha meelahaas looga goleeyay waxa weeye in shaqaalaha iyo hay'adda shaqaaluhu ay noqdaan dad daqiiqad kasta waxa ka dhaxdhacaya wasaaradda waa marka mashruuc dhamaado waxa ka soo baxaya waxa weeye in anigoo xafiiskayga fadhiya maanta waxa ka dhex socda shaqaalaha wasaaradda caafimaadka meelaha ugu shaqaalaha badana in xafiiskaygu reportkooda aan saacad kasta heli karo hebel baa maqan muxuu ku maqan yahay resultkiisa aan heli karo oo goorno markaan u baahdo aan meel walba karo waxaan samaynaynaa in maxadka tababarka shaqaaluhu qaabkan uu shaqeynayo la sii tayeeyo waayo waa isha ay ka soo baxayaan shaqaalaha dawladdeena doonayna inay karti shaqo hufnaan iyo samir yeeshaan waayo de waa meel u gaara in lagu tababaro sida xafiisyada looga shaqeeyo jaamacadaha dalka wuxuu kaga duwan yahay de faculty kala male oo department kala male wuxuu leeyahay de public administration iyo qaybihiisa oo kala duwan hatta xisaabaadkii maamulkii tahay waxyaabahaas uu leeyahay marka inaynu ku control shaqaaleena mashruuc wax ka soo baxayo hay'ad dhisan oo tayeysan runtii wuu socdaa meel wanaagsan buu marayaa imaka waxa ku maqan East Africa waxa ku maqan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo madaxdii maxadka tababarka shaqaalaha dhawaan insha Allah waxaanu rajaynaynaa in midhihiisii ugu horeeyay soo baxaan la abuuro in shuruuc iyo xeerar la jaan qaadaya dunida casriga ah in kala day fursadii ugu dambeysay waxaan doonayaa ka faa'iideysto marka wax la qabto kulley cabasho way timaada ibn aadam waxa la yiri meesha hadii marka la doonayo in la shaqeynayo waxa lagu gartaa waa marka cabasho ka timaado toddobaad weytoole inaan reer Soomaaliland oo anigu karaamo iyo sharaf iyo qadarin u hayo waayo waa dhalinyaradii wadanka wax soo baratay haduu wax salo wax xaq u leeyahay lama cambaarayn karo waxna lagama sheegi karo laakiin inaan kaas baa soo galiyay website-da iyo Facebook wuxuu soo galiyay waxyaabo uu ku cabanayo runtii anigu inaan kaas xilliga ma joogin imtixaanka oo kale laakiin waxaan u maleynayaa qaladaadkan anigu inaan ka ku arkay waxa weeye horta meesha commission baa ka taliya imtixaan marka la qaadayo gudoomiye qori ma taliyo 5 xubnood oo commission baa jira waxana jira commissionku iyagu imtixaanka ma qoraan mana saxaan waxa jira guddi marka aanu soo xillo oo aan xitaa la sii ogeyno aanu dadka aqoonyahanka ee dalkeena jooga soo xillo waanu dhaarinaa annagu ma ninaana kaasa sarreeyay iyaga soo qora annagu shaambada iyo saxiix ay commission koodham gudoomiyuhuna uu saxiixaan commissionkuna uu saxiixaan guddiga imtixaankuna way saxiixdaan dabadeedna wixii envelope ku jirin baa gidaarka lagu dhajiyaa marka
horta commissionka inuu eedeeyaabay ahayd laakiin guddoomiyaha keliya inuu eedeeyo meel hadduu cid eedeynayo midka kale dee qaladka ka waxa weeyaan markuu imtixaanka galay natiijo lasoo dhejiyey runtii 7 bilood baa u dhexeeyey marka dee nin dhalinyaro aqoon-yahan buu ahaaya iyadoo hay-addu dadaalayso oo la doonayay in wax la bedelo inuu dhalinyaradii moralka kaga dilo yidhaahdo meesha waxba ma yaalaan ha ku lugu-ina dee waxyaabaha la doonayay dagaalka nafsaaniga inuu dhalinyarada ka daayo ay ahayd oo uu dhalinyarada dhiirigeliyo waa mahadsantii